waxaan bilaabaynaa part 2gii waxaan maanta soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala form registration in maanta samayn doonaa marka hore inaga soo sameynay loginkii saad arkiseena maxaa la yidhaha loginku inoo shaqeynayey marka nimkasa start nidhaahno inshallah admin 1 2 3 4 5 password kasaan nidhi waa inagii eegnay successful waa kii nidhi hadduu passwordka khaldayna waa kii inoo sheegay hadii password khaldan iska gelino hadalkiisaan valid hadda waxaynu samayn doonaa qaybtii labaad oo ah inaynu sameyno form registration saad form registration u samaysto waxaad soo kicin marka hore projectkaagii kadibna waxaad tegi doontaa halkii ku qorantay solution explorer halka ay ku taalla deedna projectkaaga magaciisa ee form registrationkaynu right click siinaynaa kadib waxaad leedahay add kadib waxaad leedahay windows form intaa kadib isaga kana ku wada dooran mardu si shaabaha waxba badan oo baanid kaliya formkaaga aad magac bixin hadda waxaan leenahay form registration users ama form registration users waxaan leenahay form registration users dadna xidho doona add markaan halkaa marno waxay noo furmaya daaqadan yar daaqadan markay noo furanto kadib waxaan insha allah samayn doonaa inaynu textbooksyadii iyo soo dhigno marka waxaan ka bilaabi doonaa levels waxaan u baahannahay haddaba waxaan u baahannahay midaynu gelino usernamekii iyo midaynu gelinayno passwordkii midaynu gelino first namekii last namekii addresskii iyo telefoonkii okay bal haddaba magaceedan ka bedelo inaana kan waa username sidii formkeenu u ahaa deedna ku xigsiino password kadib waxaan ku xigsiin doonaa inaan idhaahno first name waxaa kaloo inu ku xigsiin doonaa last name waxaan kaloo inu ku xigsiin doonaa address waxaan ugu dambeysiin doonaa telefoonkii intaasaynu soo dhigi doonaa markaa textbooksyadooda halkaynu deedna ku qori doonaa textbooks drop and drag baynu samayn halkaynu dhigi sidaas lamidaynu ku samayn doonaa hadii la yidhaahdo intaa markaynu dhamaystirno waxaanu qaad 3 iyo 3 halkanaynu soo dhigi si formkeenu xogay inoogu yaro qurux bato halka waxaynu soo qaadan doonaa hal levelkaas aynu ka dhigi waxaan leenahay marka halka waxaan u bixin doonaa user registration form kadib waxaan tegi fontiga sizekeenu xogay soo yaro weyneyn doonaa insha allah intaa kadib waxaan u baahannahay inaynu sameyno batamadii batanka u horeeya maanta aynu sameynaa wuxuu noqonaya registrationka aan xagan dhigano inaan insert ama create waxa doontaad u bixin kartaa dadna batankan aynu double click siinaynaa kadib halka waxaan kusoo qoraynaa using system data.sql halkan connectionkii aynu sidii kii hore kale sameynaynaa intaynaanu gudbin haddaynu markaasaan idhaahno aynu halkii tagno aynu connection kasoo xidhano waa sax haddaynu kii kale kasoo koobiyeysana waa same labadu waa isku mid marka connectionku waa same intaa kadib halkan aynu imanaa waa batankeennii waxaan leenahay sql connection new sql connection sql command cmd equal new sql command
marka halkan mar haddaynu procedure isticmaali doono store procedure-ka nameka store procedure-ka inaynu kasoo gelin doono insha allah waxaan leenahay cmd dot command type equal command type dot store procedure. inta kadib waxaan qori doonaa parameters cmd parameters add with view saan markaa u dadejina haddaba insha allah waxaan gelin doonaa textbook swanka waxaan gelin doonaa halkan username oo parameterada soo declare garan doona then waxaan gelin doonaa textbook swan dot text cmd dot parameters add with view inta markaan sameyno kadib waxaan leenahay password saas la mid umaynu kuwa kale oo dhan u wada gelin doonaa insha allah saas umaynu ku wada doonaa ka kale waxaan leenahay first name isagana textbook string ahaa waxaan leenahay cmd parameters add ilaa intaan dhammaynayno saas umaynu u wadana insha allah textbook sidayna oo dhammaantood aynu soo wada gelinayno waxaan ka tagnay at oo inoo tilmaamsa parameterkii halka waxa weyn addresskii addresska waxaynu ku xigsiin doonaa insha allahu tacaala kii u dambeeyay baynu qori doonaa hadda oo ahaa isaguna telefoonkii telefoon baynu leenahay kadibna waxaan furinaa connectionkeeni sida caadiga ahay kadib waxaan leenahay halkan cmd dot execute query intaa kadib halkan waxaan soo dhigi doonaa waxa la yidhaha message box inoo sheegaya in daatadani ay tagtay successfully saved intaa markaynu sameyno kadib connectionkeenu soo xidhanayna markaynu intaas sameyno haddii alla qadaro waxaynu markaa haddaba databasekeeni baynu dib iminka saasuu formkeeni inoogu dhamaystiray databasekeeni baynu dib ugu noqonaynaa waxaynu sameynaynaa inaynu soo sameyno store procedure-ka haddaba waxaan leenahay create procedure deetana waxaynu odhanaynaa insert users deetana halkan waxaynu ku declare garaynaynaa variableska aynu doonay in la geliyo username password waxaa kaloo aynu gelin doonaa first namekii first name last name mar kale haddaan kugu celiyo enfaker waa data type-ka nooca uu kuu sidayo weeyaan nooca uu kuu soo qaaday datada nooceeda uu kuu sidayo maxaa la yidhaha variable-kani kana waxaa la yidhahdaa waa data type-ki nooca uu kuu sidayo iyo inta xaruf ee ay ka koobnaanayso data type-kaas marka waynu garanaa username-ka ugu badan 50 xaraf ma gaadho haddii uu gaadhana ilaa 50 xaraf laakiin wixii ka badan wuu kuu diidi doonaa last name-ka kadib waxaan leenahay address enfaker isagana saasoo kale waxaa kaloo ku dari telephone ayaan ku daraynaa intaa markaynu idhaahno ka u dambeeysa koomada kuma xidhano intaa kadib sida caadiga ahayd waxaan odhan doonaa as kadib waxaan leenahay began kadib waxaan qori doonaa halkan insert into marka haddii aynu kolomadii halkan ku sheegno iyo haddaynu ka tagno si advance haddaynu qoro tusaale values insert into waxaan sheegi doonaa table-ka aynu doonayna inaynu gelino oo ah table-keena users dadna waxaan sheegnaa values halkan deedna furayna waxaan leenahay password waxaan leenahay oo kale first name haddana waxaan soo qori doonaa kii kale last name waxaan qori doonaa addresskii iyo ka ugu dambeeyo ah telephone intaa markaan dhammayno xidhayna
kadib waxaan halka ku qori doonaa end. Intaasaynu markaa highlight saarnaa, waxaan leenahay execute. isna saasuu inoogu samaysmay. Magacaasi waa magaca procedurekeena, kaasaynu markaa qaadan doonaa insert users, kadib waxaan ku noqonaa programkeenii, halkaasaynu markaa dhigi doonaa magacii. Markaynu saa magacii u dhigno, intaa wixii ka dambeeya waxaan leenahay execute, waynu fulinaynaa, start baynu leenahay. Hadda sorry, halka waad arkaysaa markaynu kicino waxaa markaba soo kacaya, maxaa la yidhaahdaa, waxaa soo kacaya formkii loginka. haddeen laakiin loginkii gallo tusaale ahaan anu deetana nidhaahno meel alla meel ina geenaya ma jirto. haddaba siuu loginkaasi inoo geeyo kii, in yar baynu dib ugu noqona formkeeni loginka, double click baynu siin, halkaa aynu messageka nidhi ayaynu masixi, intaas waynu masixi. deetana waxaynu odhanaa formkeenii ahaa formkeenii registrationka fr baynu odhan, new form registration, kadib waxaan qori doonaa formkeeni waynu soo qadan doonaa fr show baynu leenahay. intaa kadib waxaan odhanaynaa formka koowaad ama formkeenan loginka, intaa markaynu sameyno hadda waxaan leenahay soo kac, waxaan leenahay userkeen waxaa admin password 1 2 3 4 5 waa kaimka kii kaloo hadda ina keeno. intaas markay dhamaato kadib halkaynu magacayga gelinaynaa. tusaale waxaan leenahay cabdirasaaq soo qabo maxamed, sorry, userkeenu waxa weyaan cabdirasaaq, sorry, kasoo qaad userkeenu inuu yahay cmc, passwordka waxaan ka dhigaynaa 1 2 3 4 5. halka waxaan gelinaynaa magaciisa marka cabdirasaaq cumar, adresskiisa waxaan gelinaynaa kasoo qaad hargeysa, telefoonkiisana waynu gelinaynaa masalan 063 418 54 84. intaa kadib waxaa leenahay insert, wadarkiisa waxaa nagu yidhi successfully saved. haddaba bal aynu hubina haddaba dhaatadii inay gashay iyo in kale. haddii aynu soo qaadano koodhkeenii hore, halkan aynu highlight siino users, dadna execute aynu idhahno, waad arkaysaa uu galay. haddaba userkan inuu shaqeeyo aynu mar kale ku soo gallo, kan aynu xidhnay, kana waynu iska xidhnay. waxaynu tegaynaa formkan kicinaynaa, waxaan leenahay cmc, passwordka waxaan gelin 1 2 3 4 5, waxaan leenahay logowadi kaarkay u shaqeynaya. waa haddaba mid kale ku gallo, aynu form kale, aynu magac kale ku gallo, khadarba ma diiwaan gashanaa. haddaynu gallo muxuu leeyahay filed. intaana waxaa noogu dhammaaday casharkeenii labaad ee registrationka, oo aynu kusoo qaadanay maanta career operationka kiisii koowaad ee ahaa login createkii.